Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa ku waramaya in wafdi uu horkacayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu soo gaaray magaalada Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, isla markaana uga qayb galay caleemasaarka madaxweynekii labaad la doortay ee Axmed Madoobe ee maamulka Jubbaland, ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, isla markaana ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya ee sanadda 2021 la filayo inay ka qabsoonto dalka Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud oo isla markaana gudoomiyaha xisbiga Nabad iyo Horumar, isla markaana afka qalad loogu yaqaano Peace Development of Somalia, inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya sanadda 2021 la filayo inay ka qabsoonto dalkeena Soomaaliya. Isku soo wada duub soo dhaweynta Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan xisbiyada siyaasadda ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya.